Waxaa caawa maqribkii soo gaaray dagaal qaatay 13 saacadood oo waa berigii hore Jimcihii saaka ka bilowday magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug. Saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda oo maanta Dhuusamareeb ka dagaalamay ayaa noo xaqiijiyay in hadda soo gabagabo dagaalka magaalada laga saaray ciidanka Ahlu Sunna. Sidoo kale ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa Gorgor ayaa galabta si nabad ah kula wareegay deegaanka Bohol oo ciidanka Ahlu Sunna ay ku sugnaayeen. Gudoomiyaha Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Qoro oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magaaladu ay nabad tahay, dadkii ka qaxayna ay ku soo laabtaan maadaama ay ciidamada dowladda si buuxda gacanta ugu hayaan. Sidoo kale gudoomiyaha oo ka gaabsaday inuu faahfaahiyo khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ayaa sheegay in guddi soo baara ay u xilsaari doonaan oo kadib ka soo shaaci doonaan xogta khasaaraha oo dhammaystiran. Ciidamadii Dhuusamareeb ka soo weeraray ee Ahlu Sunna ayaa laba jiho galabta uga baxay magaalada kadib markii looga ataag roonaaday dagaalka, waxayna ku baxeen dhanka bari iyo galbeedka magaalada, waana labadii jiho ee markii hore ay kasoo kala weeraray magaalada. Saraakiisha oo aan la hadlay waxa inoo xaqiijiyeen in maxaabiis iyo gaadiid dagaal ay ka furteen kooxda, isla markaana ay dhawaan soo bandhigi doonaan, sidoo kalena ay faahfaahin buuxda ka bixin doonaan dagaalkii maanta. Waxaa jira khasaare xoog leh oo dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed leh, balse ilaa iyo hadda ma jirto goob rasmi ah oo loo sameeyay, waxaana magaalada horey uga cararay inta badan dadkii ku noolaa oo habeenadii la soo dhaafay degniino hordhac ah ka helay xoogagga Ahlu Sunna.